tahay waxtarka iyo faa'iidooyinka uu leeyahay geedka dhagayarahu. Aan ku xasuusiyo inaad koob caano ah ku darsato hal qaado barhkeed oo ah geedka dhagayaraha oo la daqiijiyey kadibna aad cabto habeenkii xilliga hurdada ka hor. Isla markaana aan ku sheego 17 faa'iido oo ay jidhka u leeyihiin caanaha iyo dhagayaraha la isku daro ee wakhtiga la isticmaalo. Waxaanay kala yihiin kow, waxay yeeshaan xaddi badan oo ah vitamin D iyagoo ilaa xadna kor u qaada caafimaad qabka lafaha kana hortaga burburka ku yimaada lafaha. laba, waxay si cajiiba kor ugu qaadaan caafimaad qabka beerka, kaliyaha iyo guud ahaan bawrku jirta. saddex, waxay yareeyaan xanuunada laga dareemi kara kala goysyada jidhka waxaanay hoos u dhigaan oo khafiifiyaan xanuunka rheumatismka. afar, waxay dawo cajiiba u yihiin qanjo xanuunka iyo qufaca soo noqnoqda. shan, waxay wanaajiyaan shaqada dheefshiidka waxaanay meesha ka saaraan calool istaaga. lix, waxay caloosha dawo uga yihiin dibirada badan iyo gaastariga. toddoba, waxay dawo iyo ka hortagba u yihiin xanuunka bawasiirta. sideed, waxay beerka ka hortag uga yihiin inuu yeesho subagga kolestaroolka. sagaal, waxay qofka ka ilaaliyaan dhiig yaraanta waxaanay jidhka siiyaan faytamiino badan oo muhiim u ah jidhka. toban, waxay wanaajiyaan shaqada maskaxda waxaanay kor u qaadaan xasuusta qofka. 11, waxay kor u qaadaan caafimaad qabka ciridka iyo ilkaha. 12, waxay jidhka siiyaan firfircooni badan waxaanay hoos u dhigaan daalka iyo tacabka badan. 13, waxay u wanaagsan yihiin caafimaad qabka indhaha waxaanay ka hortagaan caadka ku samaysma indhaha. 14, waxay habeeyaan sonkorta dhiigga ku jirta waxaana yareeyaan fursadaha qofka uu ku qaadi kara xanuunka sonkorowga. 15, waxay kor u qaadaan difaaca jidhka waxaanay dawo ka yihiin qaniinyada qaar ka mid a xayawaanada yaryar. 16, waxay wanaajiyaan caafimaad qabka maqaarka waxaanay meesha ka saaraan finanka ka soo baxa wejiga. 17, waxay dawo ka yihiin hurdo xumada waxaana yareeyaan miisaanka badan ee jidhka. waana koob caana oo wax yar la diiriyey kadibna lagu daray hal qaado barhkeed oo ah geedka dhagayaraha oo la daqiijiyey.